khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre. warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa laba qodob oo waaweyn oo salka ku hayo khilaafka ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. intaanan ka hadlin khilaafkan cusub iyo waxa uu salka ku hayo, fadlan daawade muuqaalkan like saar una share garee asxaabtaada, falowna soo dhee page-kan si aad noola jaanqaado. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15kii bishii la soo dhaafay ee June ra'iisul wasaaraha dalka u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo isku koox ahaayeen waqti dheer, waxaana durba dadka siyaasadda indhaindheeya u sawirantay in ra'iisul wasaaraha cusub uu noqon doono adeegyo aan ka hor imaan karin madaxweynihii magacaabay. waxaase hadda jirta muran iyo dood u dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkan u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha? khilaafkan wuxuu salka ku hayaa kana bilowday laba qodob oo kala ah. kow, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu doonayaa in golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya la wada siiyo saaxiibadiis iyo raggii kala soo shaqeeyay ololihiisii doorashada, waana meesha ubuucda u ah khilaafkan ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. haddaba muxuu doonayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre? ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wuxuu ku dhagan yahay in golaha wasiirada Soomaaliya aan lagu koobin kooxda xukunka haysa, wuxuuna qabaa in xukuumadda la ballaariyo oo lagu soo daro dad miisaan leh oo dowladnimada Soomaaliya wax tari kara. labadaas aragtiyood oo kala duwan ayayna isku hayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre. waxaana jira warar sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ra'iisul wasaaraha u soo jeediyay inuu u madax bannayn doono wasiirada ka imaan doona beeshiisa, gaar ahaan dhinaca Jubbaland. lama se oga sida uu aqbali doono ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isagu hadda u muuqda ra'iisul wasaare raba inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ay ku wada qanci karaan dhammaanba dhinacyada siyaasadeed ee Soomaalida. sidoo kale waxaa jirtay cabsi iyo walaac laga qabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, taasi oo ku aadaneyd shakhsiyadiisa iyo inuu ra'iisul wasaaruhu noqdo shakhsi koox gaar ah u afduuban. waxaase durba laga akhristay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inuu yahay waayo arag siyaasad ahaan madax bannaan, taasi oo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ka dhigaysa mid aysan awood ahaan liqin filla Soomaaliya. intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo aan ku dulmaranay khilaafka huursan ee u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre. daawada aragtidaada qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag, like na saar muuqaalkan una share garee asxaabtaada. mahadsanid.